asxaabta kusoo dhawaada runshaag media network asxaabay waxaan rabaa marka hore inaan idin iraahdo jimco wanaagsan maalin wanaagsan maanta waxaan rabaa inaan idin sheego wasiirka gaashaandhigga ee Israel ayaa wuxuu sheegay arrimo badan oo ku saabsan xiriirka Somaliland iyo Israel sida aad wada ogtihiin waxaa jiro madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro inuu horay booqasho ugu tagay aan la sii shaacin Israel dabcan taasoo ahayd booqasho qarsoodi ah oo ku saabsan xoojinta xiriirka labada dal sida lagu sheegay waxaa kamid ah iskaashi dhanka amniga ayaa la yiri oo labada dal ay iska kaashan doonaan in saldhigyo ay maaragtay ka furto yuhuudda wala su'aashaas markii la weydiiyay madaxweyne Ciro oo yiri aniga hadda kama hadli karo arrintaas faahfaahin dheeraadana kama bixin dabcan waxaa dhanka kale jirto imaaraadka carabta oo aad u ammaanay xiriirkooda yuhuudda iyo Somaliland oo aad u soo dhaweeyay maadaama dowladdii dhexe ay u jartay xiriirka imaaraadka dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu booqday isbitaal caruur Somaliland lagu daaweynayo oo wadnaha qalliimo looga sameeyay kuwaas oo runtii u rajiyay caafimaad waxaa kaloo sidoo kale uu saxiixay heshiisyo aad u tiro badan oo ku saabsan iskaashiga dhanka maalgashiga beeraha tamarta kalluunka iyo maaragtay kheyraadka macdanta iyo difaaca marka arrinta difaaca raba inaan wax isdul istaago waxaan ognahay Somaliland in hadda kahor loo geystay duqeyn oo dhibaato ay ku dhacday marka ma dhici kartaa in Somaliland ay markaan iyadana ay duqeyn geysato oo ay koonfurta weerarto ayadoo dhehayso waxaan arsanaa duqeyntii la ii geystay dabcan waa suurtagal Soomaaliya waxay maanta xiriir leedahay Turkiga Somaliland Israel ama Yuhuudda marka waa suurtagal arrintaas possibility-ga in ay arrintaas Somaliland ka dhawayso oo ay aarsato waa 99% ay tahay in weerar toos ah oo dhanka Yuhuudda oo ka yimaado oo ku wajahan koonfurta Soomaaliya waa suurtagal maxaa yeelay guud ahaan reer koonfur ay Somaliland runtii cadaawad u qaadeen berigii duqeynta loo geystay iyagoo aan kala saarin koonfur iyo dowladdii berigaas dhibka u geysatay laakiin waa suurtagal runtii la filan karo howlgal military oo ka dhan ah koonfurta inay dhacaan runtii waa suurtagal dhanka kaleento marka laga hadla arrimaha diblomaasiyadda waxaa suurtagal ah aqoonsiga Somaliland hadda ay heshay iyo dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya halkaasna waxaa ku jira runtii arrimo badan oo u baahan in faham qoto dheer laga qaato sida ay arrimahan u suurtagaleen waxaa kaloo suurtagal mataqaanaa u baahan faham qoto dheer iyadana xiriirka dowladaha Soomaaliya saaxiibada leh dhammaan xiriirada kala duwan ee diblomaasiyad la leh Yuhuudda ama Israel laakiin dowladdii dhexe Soomaaliya ay markasta canaananayso ama ay warmurtiyeed soo saaray oo ay ku eedeynayso Somaliland iyadoo aanan la hadlayn ama aan u jawaabeyn dowladihii ayada saaxiibka ay la ahayd oo dhammaantood xiriiro kala duwan la leh Yuhuudda la leh siyaabo kala duwanna ula macaamilo dhanka kale madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro wuxuu qaatay biladii loogu talagalay madaxda xiriirka tooska la yeelatay Yuhuudda oo iskaashiga dhow runtii oo dhan kasta oo dhex maro biladaas qof kasta lama siiyo madax qaas ah la siiyo caalamka oo dhan waana bilad la siiyo dadka sida dhow ula shaqeeya Yuhuudda xiriirada kala duwanna la yeesho dhinacyo badanna ay iska taageeraan oo ay iskaashi 100% ay samaystaan oo ku dhisan kalsooni iyo maaragtay muxuu ah wada shaqeyn xooggan runtii taasina waxay muujinayaan madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro inuu arrintaas aad uga dhaweeyay oo go'aankaas qaatay taasoo ku helay biladii waana mas'uulkii ugu horeeyay ee helo biladaas midda kale aad u baahantiin oo agtii waxay tahay Soomaaliya Israel ma ahan Cabdiraxmaan Ciro uma ahan mas'uulkii ugu horeeyay taga ma ahan mas'uuliyiin badan aad tagay oo tageen Israel oo qaar ka socda Somaliland qaar ka socda koonfurta Soomaaliya qaar ka socda dowladihii Soomaaliya soo maray xataa Muqdisho siyaasiyiin badan aad tageen madaxweynayaal hadda maamul goboleedyada qaar badan aad tageen oo siyaabo kala duwan ku tageen oo dana shakhsi iyo dana xiriiro hoose u tageen Soomaalida tagto siyaasiyiinta 357 qof ayaa lagu qiyaasaa ee ka kala yimid waqooyi koonfur dhan walba xataa maamul kasto Muqdisho ha noqoto Jubbaland ha noqoto Puntland Galmudug koonfur galbeed iyo Hirshabeelle iyo Somaliland marka Israel waa la wada tagay laakiin dana kala duwan loo wada tagay waa iska soo bixi doonaan mid kastaaba
waqtigiisa ayuu soo bixi doonaa danta u tagay oo sheegi doonaa laakiin mid qasoon ma aha 357 siyaasi oo Soomaaliyeed inay tageen Israa'iil oo ka kala yimid maamulada kala duwan ee Soomaaliya ka jiro siyaabo kala duwan u tagay runtii marka arrintaas waxay u baahan tahay faham dheeraad marka Soomaaliland kaliya in la eedeeyo ma ahan dhiiqada iyo badda waa lagu wada jiraa marka muxuu ahaa xiriirka Israa'iil na waa la wada leeyahay oo dhammaan cid hadda maanta ka maqan saaxadda Israa'iil ma jirto marka yaan Soomaaliland kaliya lagu eedeen intaas aniga qabaa aad iyo aad u mahadsantiin sheeg subscribe gareey asxaabtiin la wadaaga jimco wanaagsan qari caafimaad rajayna bye bye